xaqiiqsaday marka hore kow aan xaqiiqsaday ilmaha in ay hani dhashay markii aan la tagina kadib oo dhaar iyo kitaab ay isla gaartay waxay ii caddaysay ilmaha in ayada ay dhashay فتح بلشاوي فتح بلشاوي عبد الفتاح بلشاوي عبد الفتاح بلشاوي فتح بلشاوي فتح بلشاوي فتح بلشاوي فتح بلشاوي بقرك وصابك وبلشاوي عبد الفتاح بلشاوي فتح بلشاوي بلشاوي فتح بلشاوي عبد الفتاح بلشاوي عبد الفتاح بلشاوي فتح بلشاوي عبد الفتاح بلشاوي كداوانا سوى افتح بشاو فشيال فضلا هديت يميل كوغور سجلنا كيغا سو بوقان شو حسي حشمada kaaga codsanaya like subscribe share iyo comment tan waxay tahay dhiiri gelin saan hore waa ayaga soo hadlay muuqaalkii hore soo daawateen ama baraha bulshada qayb ka mid ah ku soo aragteen arrintii maalmahan taagneed hani iyo Kamaal Cabdul way dhamaatay maxay isku dhamaatay anu mar hore aan sheegay waxaan idin soo gudbinayo waxaan xogteeda hayo caddeynteeda hayo waxaan inta ahayn ma soo gudbiyo madana ma soo bandhigo gabadhaas gabar marwaabe ahayd oo ilmo dhashay oo la qabo iska dhaaf adiga in garanaysaa hadallo iyo waxa la yidhi iska dhaaf xataa indheheeda ka dareemseen waxa weeye dhaqanka iyo dabeecadda iyo isla socodka anagu dee Kamaal aan nahay rag saaxiiba ah oo mar walba isxaab u ah haddana wax walba qofku waxa weeye caqligu ka qiyaas karaa yacni tusaale aan tusinaya tusaalahan siri waxa weeye adoo og maanta salaada aad tukan baa qof laga yaabaa asagoo inuu tukan ku yiraahdo inuu ilaahay ka baq waxa iska daa inuu ku yiraahdo yani cilmu ma leh laakiin wuxuu yahay waxaan wax wanaagsan ahayn yani wax qaab noocaas wax loo kala saaray xataa jirta haddii aad wax ka xog hayn caddeyn hayn waxyaabo badan oo caqliga iyo garaadka lagu kala saaraa jira laakiin waxa la yidhi nin jeclaysiyo gabar jeclaysiyo iska ilow Kamaal Cabdul waa fiican yahay laakiin dad badan waxaa jira dad badan oo daaha gadaashiisa wax ka maamula dad badan oo jabka Kamaal Cabdul jabab ka waaweyn ama dhib ka waaweyn haysto laakiin haddana qariya marka yani waxba hadal ku daalin waxaan uga geli doonaa yarta arrinta waxay kusoo dhamaatay in Kamaal Cabdul uu sheegay oo yiri gabadhaas waa gabar marwaa waa la qabaa ninkaas ay sheegaysaana qaba ciyaalkaasna ayada dhashay haye idan maxay dhashay ilmo ma dhalin marka intaan u gudagelin Kamaal Cabdul oo qiraya inay gabadhaan yani la qabo marwana tahay ilmahaas dhashay odaygaasna uu qabo inta si qiran bal ka hor uniga Soomaalidu way dhib badan tahay ma garanaysaa muuqaal hore oo duubay baan soo arkay muuqaalka markii commentiyada akhrim ka sabaxa maqal dad badan oo dhahaya muuqaalka inoo saf gareeya muuqaalka inoo haya inoo saf gareeya remember muuqaalka marka arkay inaan la wadaagaa jeclaysta muuqaalka markaan soo arkay wallaahi bilaahi talaahi in la wadaagaa jeclaysta anigaa qoslay marka muuqaalkaas ama balado daawano waxaan arkay comment arkay magazine kulaha TikTok hada keenti bar YouTube soo fadhiisi barna waxaan arkayna kulaha kala tagin horta aan hada idin sheegaa hadalkan hadda laga qoro maxaantaday hadii ka tago ana markaas waa waashti macnaha waa waashti hadi soo qabto silsila lagu xiro adigan macnay adigana macaanay saas camal yani wuxuu yidhi hani haddaan ka tago oo hani aan kaa tago waan waashay hal xiro hadda xaqada ogaatay Kamaal mawaalanta amay wax walba horta dhacay qadar rabbi ku dhacaan wax uu ilaahay xukumin adduunka horta kama dhacaan adiga saarabtay wax kuma noqonayaan sida adigu rabtay wax kuma noqonayaan ayaan wax leedahay marka waa maalmihii ay hayeen oo xiriirkooda bilaabanayay in niqaabkooda ama in shareerneed weeye marka commentiyada waa 1777 commenti marka commentiyada ugu badan dadku waxay ka dhiibanayaan waxa weeye commentiyada inta badan dadku waxay ka dhiibanayaan waxa weeye muuqaalkan inoo safgareeya iyo aan hayno iyo qaab noocaas kale ah marka muuqaalkaas waa daawateen wuxuu yidhi haddaan hani ka tago waa waaranahay hal xiro maanta wuxuu taagan yahay waa la khiyaana Kamaal horta keliga ma aha dad badan baa jira dhacdooyinkan iyo dhacdooyinka weyn ay ku dhaceen laakiin aamusan anigu waa Abdulfataax Bulshaawi inaan ogahay aniga og dad badan oo social media ku jira dhibka hadii ku haysta mid ka weyn uu haysto laakiin qarsanaya
laakiin waxaa qarsatid way ku qarsadaan baa la yidhi. marka muuqaalkaas halkaasa kaga gudbiyaa. muuqaalka labaad aan u socono waxa weeye kan Kamaal Cabdul ku xaqiijinayo inay gabadhan tahay marwo la qabo, caruur leh, xaasna ah, ninna uu qabo. muuqaalkaas marka commentiyadiisa markaa fiirsa inta badan waxay inta badan dadku hadlayaan waxa weeye ninkan wuxuu garan waaye garoonada isku mid ma aha. garoon markaa cusub oo la furay iyo garoon dee hore loogu soo ciyaaray isku mid ma aha. qaarkood waxay leeyihiin 20 sano meel xabaduu ka socdeen si adigu kala garan weyday, ima bikray garoon ba kala garan weyday. intaasoo commentiyadu badan yihiin. okay, dadkiina commentiga qoraya oo dhahaya war maad iska fiirisid iyo maxaa ma kala ogid miyaa garoonadii waxaas inay isku galmoodeen, adigu madaa ogaa? ma gowjoog ba u ahayd? maya. indhahaagu miyaa saartaba? may. sideedaba waxaa la aaminaa waxa adigu indhahaagu ay arkaan, dhagahaaguna ay maqlaan. laakiin hebel waxaa la yidhi, hebel wuxuu yidhi anigu kuma shaqeeyo ka shaqsi ahaantii ka Cabdi Xabshaw aan waxaan u aaminaa waxaan dhagahayga ku maqlan indhahayna ku arko. marka commentiyada inta ugu badan dadku waxay u badnaayeen kuwa yidhaahda maxaa laiska hubin waaye naag insaas ina taa waa la ogaa hababababa. marka commentiya intaan u gelin bal muuqaalka Kamaal Cabdul waxa uu ka aaminsan yahay gabadhaan bal haddana hadda waad soo daawatay markuu lahaa waa ribeen badi hadda toos ah, yani markuu leeyahay yani haddaan anigoo hena ka tegay daa aragtaan waa waalanaya xira. bal muuqaalkan oo daawana marka. wax la qarinayo ma jiro, laakiin markii hore qofka adiga xaaskaaga ah haddii isku dhaho aniga ilmo ma dhalin weligii wax mu soo mareen waa aaminaya. sax ilaa qofkan markaa shukaansan wejiga muu qorna maxamuud. hadda waxaan xaqiiqsaday marka hore kow aan xaqiiqsaday ilmaha in ay hani dhashay. markii aan la tagina kadib oo dhaar iyo kitaab ay isla gaartay waxay ii caddaysay ilmaha in ayada ay dhashay. kadib maamada aan weydiiyey sababtoo ah qof ciyaalkiisa ingiriisi ka galay waxaa leeyahay qofkan si maskaxiya ma loo haystaa wax ma haysto. marka maamadaan weydiiyey maamada waxaa leeyahay maxaa ku kalifi karo in ay dafirto ciyaalkeeda. maamada waxay dhahday wallahi ani ma ogay dhahday, laakiin waxaa huba ay dhahday inay ciyaalka ayada dhashay. waana laga yaabaa ay dhahday marar badan ninkaas in ay khilaaf wada badnaado. ani si ayday dhahday way hala been ku daray. hadda maxaa samayn doonaa? hadda maxaa lagu boon marebi in social media aan ka sheego wixii aniga samayn doono. hadda kadib waxaan samayn doono waxaas noqonaa waxyaaba aniga baraabad ii ah. wixii ila gudboon diinta ku saabsan ama diinta ku salaysan xaqana aan samayn doonaa. saa ula jocotaan ula socotaan ama aa daawateen muuqaalka Kamaal Cabdul xadii gabar inay gaar marwaa tahay la qabo. hadalkiis waxaa kaloo ku jirtay dee gabar markaa shukaansanaysid wejiga kama qorna gabadhaas waa la qabaa ama waa xaas, waa dhacda caadi oo dhacda ragga inta badan soo wada marta. gabadhu inay garoob tahay iyo inay ilma soo dhashay dee horta waa sax wejiga kagama qorna. waxaa arkaysaa inta badan gabar yar asdhehaysa gabadhan weligeed ba looma dhowaan haddana lagu leeyahy ilma haysta waa hooyo lagu dhahaya arkaysaa. marka aniga arkaysaa Cabdi Xabshaw xataa way igu dhacday oo waa qiso igu dhacday laakiin haddaan rabin aan ka hadlo. laakiin waa qisooyin xaqiiqi ah oo jira wax hadda Kamaal ka hadlaayo. wejiga kagama qorna waa sax, laakiin xaqiiqadii inbuu hadda soo ogaaday. xaqiiqadii buu hadda soo ogaaday. marka dee qofka waxa weye awlaadiisa inkira inuu inkiro 5 ciyaal inkiro odageeda inkiro waxyaabaha kalifaya wax weyn maa. marka hore insha arrintan sixir bay ahayd. muuqaalada sixirkana dee inta badan soo daawateen laakiin muhiim in hadda in soo gudbiyo. laakiin waa baraha bulshada dhan bay wada yaalaan in barnaamijkan sixir oo ahaa afgooyna laga keenay. marka wax sixiraya ma Kamaal Cabdul ba wax sixiraya mise gabadha wax sixiraysa? marka gabadha weeye oo iska caddahay. marka commentiyada barshanta commenti ugu horeeya waxaan ka gaarino aan bal wada akhrino. waa inta isaan sheegayo dadku waxa weeye waxay wada akhrinayaan. okay, naagtii ugu horreysay oo nin ilmo ku inkirtay waa naagtii ugu horreysay oo ilmo nin ku inkirtay. umaran mayti warsay lix cunug buu ka wadaa. 6 cunug meel ay kasoo baxday ma dareemin miya adiga? meeshan 6 ciyaar inay kasoo baxeen adigu ma dareemin miya buu ku leeyahay. horta dareenka waxa ka horeeyaba asagu ma arag adigu ma aragtay labadooda isku galboonay hani iyo Kamaal Cabdul isku galboonay ma aragtay? may. marka heer commentiyo inuu dambaabnina ilaahayga abuurtay ka baqa oo waxaad aragtaan iyo waxa maqashaan kaliya la aaminaa ma ahane yani ayagoo isku galmoonay mina arkin. marka ka soco commentka kale waa khaldan yahay ka gudbaynaa.
qofkii dhaarto qofkii aamini waayaa ka daran ani waan ku aaminay weliba ilaahay dartiis. okay godka maxaa u dareemi weyday beenlow waxaan qori xataa waa gabar godka maxaa u dareemi weyday beenlow godka inuu galay in kale adoo horta war ma ka haysaa gabaray ilaahay ku abuurtay ka baq. wax jira qalin lagu bareeyo waxaa jiro qalin lagu bareeyo wiilkan waa la qiyaamay maskiinka ka soco taasna saasay kala garan tahay. 6 cunug meel ay ka soo baxeen oo holof ah mahow dareemi waaye hadday la qalqalay xataa dhowr shunkarkiisa lagu fiiriyaa dhoole. ilaahay hadda waasaan sheegay dadka inta badan commentiyada aan arkaysaan oo 8,000 commenti ku dhow yihiin waa 885 commenti. naag 8 caruur ah ma dhashay maadan garanaynin sixiroolkii ku dhalay wase leeyahay kana wacay tamaya yani waasaan sheegay yani muuqaaladan commentiyada inta badan waxa weeye waxay ka hadlayaan 800 ba maxaa arki weeday meel yani la dab saaray meel intaas kale oo hubiyay madaafiic ku socdeen waxaas oo dhan maxaan ka gareynka waxaan marka inka aragtaan labadiisa isku jiradisa baadhi ka baa ka hadli kartaa laakiin adoo arag dee waxa weeye wax ka shaqta waa khalad. marka arrintaas halkaas ku soo dhamaatay. markii hore aan waa sheegay oo wax la hubo oo cadeynaan ka hadlayay in gabadhan waxa weeye ay hooyo tahay oo la qabo oo dixta wajigeeda laga dareemayaba. marka hawshaas ku dhamaatay muuqaalkii inta soo gabagaynta muuqaalka kulmudana waxa ka tagay. wasalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu. daje profile-kaga bulshada saar google gal magaciisa soo bar boqorka whatsapp waaye bulshada waa taga soo barbar. daje profile-kaga bulshada saar google gal magaciisa soo bar boqorka whatsapp waaye bulshada waa taga soo barbar. la sharaf buu wataa ayaga Soomaalida laga wataa. daje profile-kaga bulshada saar google gal magaciisa soo bar boqorka whatsapp waaye